bini'aadamku waaye aad u kala fog dhulka waxa uu u qodayay ujeedooyin kala duwan sida wax beerashada. Qodidda dhulka waa aasaaska in wax la beerto. Dalagga iyo raashinka aan cunayno waxaa laga soo saaray dhulka. Markii la qoday oo wax lagu beeray, waa mar kaloo bini'aadamka dhulka waxa uu ka doonay macdan si uu ugu soo saarto dhulka hoostiis macaadinta qiimaha leh sida dhuxusha, dahabka iyo dheemanka. Mar kale dhulka ayuu qoday bini'aadamka si uu ugu dhisto oogadiisa hooy iyo dhismayaal kala duwan iyo wadooyin ay ku kala gooshaan gaadiidka, ayagoona markaa loo dhisayo laamiyo, buundooyin iyo dhuumo. Mar kale dhulka waxaa loo aaday si tamar loogu soo saarto sida saliidda, gaaska dabiiciga iyo tamarada kale ee laga helo dhulka. Lama hilmaamin dhulka. Mar kale bini'aadamku waxa uu ka doonay raadinta raadadkii hore ee ka haray bini'aadamkii ku noolaa adduunka si uu wax ugu barto wax ku saabsan taariikhdii ay noolaayeen dadkii hore iyo xaalkii ay ku noolaayeen. Dhulka mar kale bini'aadamku waxa uu ka raadiyay helidda tamar dhuleedka si uu ugu faa'iidaysto tamartaas uuna ugu adeegsado hab isku diirin iyo isku qaboojin ah. Mar kale dhulka ayaa la qoday oo ceelal ayaa laga soo saaray si looga helo biyo la cabo waxna lagu waraabsado. Mar kale oo ah tan ugu dambeysa, bini'aadamku dhulka ayuu qoday asigoo ujeedadiisu ay tahay markaan cilmi baaris si uu u barto cilmiga dhulka, sidaas oo kalena isku soo aruursada macluumaadka ku saabsan taariikhda uu leeyahay dhulka iyo samaysankiisa. Tan dambe waa midda maanta muuqaalkeena inoo suuragelinaysa inaan wax badan ku ogaano inta bini'aadamku ka qoday dhulka ilaa aan ka tagno xujada ku taagneed bini'aadamka ee ahayd gaaridda jihada kale ee dhulka si uu u ogaado aqoonta iyo hababka uu samaysan yahay lakabyada dhulka. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena asxaabay. Ugu horeyntii aan ka soo qaadno in hawsha qodidda ay ka bilaabatay dhul siman oo aan sidaas uga fogeen 1.8 mitir, kaasi oo ah celceliska qabuuraha casrigan ee badanaa lagu aaso dadka dhintay. Qodidda dhulka 4 mitir waxaa ku aasnaa oo laga helay Fircoon Tut Cinqi Amuun. Qodidda dhulka 6 mitir waa meesha ugu dambeysa ee qalab macaadinta lagu baaro uu gaaro. Qodidda dhulka 12 mitirna waxaan helaynaa meesha ugu fog ee uu qodo xayawaan, waana godadka uu qoday xaaska webiga Niil. Qodidda dhulka 20 mitirna waxaan helaynaa qabuuraha Bariis, sidoo kalena loo yaqaan Catacombs Bariis, kaasi oo lagu tiriyo qabuuraha ugu weyn adduunka, halkaas oo ay ku jiraan ku dhawaad 6 milyan oo qof. Waana godad dhulka hoostiisa ah oo isku xiran oo dhererka masaafadoodu uu gaarayo 350 mitir. Waxaana hadda ay tahay goob madxaf ah oo aad ku booqan karto jarashada tigidh lacag $15 ah si aad u soo aragto haraadiga dadkii hore ee dhintay. Qodidda dhulka 40 mitir waxaa ku taala barkadda dabaal ee leh moolka ugu qotada dheer caalamka, taasi oo ku taala mid ka mid ah hoteelada dalka Talyaaniga. Qodidda dhulka 66.5 mitirna waa barta uu yaala rikoorka ama diiwaangelinta ugu sareysa ee god dhexdiisa qof uu ku kaxeeyo baaskiil. Ciyaartan baaskiilka ee lagu kaxeeyo biyaha dhulka hoostooda ayaana ah dhab ahaantii tartan la yaab leh oo jira. Qodidda dhulka 85 mitir waxaan helaynaa magaalada Turkiga ku taala ee Derinkuyu, taasi oo si dhammaystiran loogu qoday dhulka hoostiisa, waxaana ay taariikhdeeda u laabanaysaa magaaladan qarnigii 7aad ee milaadiyada. Qodidda dhulka 105.5 mitir waxaan gaaraynaa meesha ugu hooseysa ee laga qoday boosteejo tareen ama loo yaqaan metro station, waana boosteejada tareen ee Arsenalna ee ku taala magaalada Kiev ee dalka Ukraine. Qodidda dhulka 122 mitirna waa meesha ugu hooseysa oo ay gaaraan xididada geed, waana xididka geedka magac cilmeedkiisa loo yaqaan Boskia albitranka ee ka baxa dalka Koonfur Afrika. Qodidda dhulka 155 mitirna waxaa ku yaala hoteelka ugu qotada dheer ee laga qoday dhulka hoostiisa, waana hoteelka ku yaala dalka Sweden oo si dhammaystiran lagu qoday dhammaantiisa dhulka hoostiisa. Waxaana hal habeen oo aad ku qaadato hoteelka ugu hooseeya dhulka ka baxaysa lacag dhan $600. Qodidda dhulka 284 mitirna waa meesha ugu fogeed ee uu tagay qof quuso ah asigoo neefta isku celinaya oo aanan isticmaalayn caawinta qalab iyo waxyaalo biyaha lagu quuso. Waxaana diiwaangelintan haysta quusaha Herbert Nitsch oo u dhashay dalka Australia.
qodidda dhulka 220 mitirna waa barta ugu dambeysa webiga ugu gunta dheer dhulka, waana webiga Congo ee ku yaala qaaradda Afrika. qodidda dhulka 240 mitirna waxaan arkaynaa godka tareen ee ugu dheer caalamka ee marabada hoosteeda, waana godka wadada tareen ee Sikan ee ku yaala dalka Japan, kaasi oo dhererkiisu yahay 54 kilomitir, asigoona isku xira jidkan tareen labada jasiiradood ee kala ah Honshu iyo Hokkaido. halka qodidda dhulka 287 mitirna aan helayno godka ugu dheer ee dhulka hoostiisa laga qoday wada gawaari adduunka, waana wadada godka gawaari ee Øresund ee ku taala dalka Norway. qodidda dhulka 300 mitirna sida caadada ayaa waxaa lagu duugaa haraadiga iyo waxyaalaha ka haray nukliyarada, halka sidoo kale qodidda dhulka 305 mitir ay tahay meeshii ugu fogeed ee uu qoday gantaal bini'aadamku sameeyo, waana madaxa gantaalka nukliyarka ee B82. qodidda dhulka 332 mitirna waxay ahayd meeshii ugu hooseysay ee uu tagay qof quuso ah, asigoo isticmaalaya caawinta qalab iyo waxyaalo biyaha lagu quuso, waxaana rikoorkan ama diiwaangelintan ugu sareysa haysta Axmed Jabar oo u dhashay dalka Masar. qodidda dhulka 392 mitirna waa meesha salka ugu dambeysa u ah ceelka ugu dheeraa ee laga qoday dhulka iyadoo la isticmaalaya gacan, waxaana ceelkan uu ku yaalaa dalka Ingiriiska, asigoona la qoday sanadii 1862. qodidda dhulka 970 mitirna waa barta ugu dambeysa oo ay gaarta goobta macdanta Bingham ee ku taala New York dalka Mareykanka, kaasi oo ah godka ugu dheer caalamka oo ay gaarta falaaraha qoraxda, waxaana sidoo kale haddii halkan lagu tijaabiyay in la dhex dhigo dhismaha ugu dheer caalamka ee Burj Khalifa weli ka soo hari doona dherer dhan 140 mitir. qodidda dhulka 1 kilomitir keliyana wuxuu noqonayaa ku dhawaad 330 cadaadiska gibilka, taasi oo ay macnaheedu tahay wax u dhigma 4 maroodiyaal oo culeyska wadartoodu ay tahay 28 tan oo la dul saaray madaxaaga. qodidda dhulka 1271 mitirna waxay ahayd meeshii ugu hooseysay dhulka ee lagu qabtay xaflad muusig ah, taasi oo ay qabteen kooxda Agonizer ee dalka Finland sanadii 2007. qodidda dhulka 1640 mitirna waxaan gaaraynaa halka ugu dambeysa ee harada moolka ugu dheer leh caalamka, waana harada Baykal ee ku taala dalka Ruushka. qodidda dhulka 2200 mitirna waa meesha ugu dambeysa godka ugu dheer caalamka ee lasoo helay, kaasi oo ku yaala dalka Georgia. qodidda dhulka 2500 mitirna waxaa ku yaala sheybaarka cilmi baaris ee dhulka ugu hooseeya, kaasi oo ah mid ku yaala dalka Shiinaha. qodidda dhulka 3600 mitirna waa barta ugu hooseysa dhulka ee laga soo helay noole, waana tixrigan oo laga soo helay mid ka mid ah goobaha macdanta laga qoday ee ku taala dalka Koonfur Afrika. laakiin la soco wuxuu bini'aadamku ka tagay mashruuca meel kasii hooseysa bartan oo ah 3900 mitir, halkaas ayaana ah meeshii ugu fogeed ee dhulka bini'aadamku ka tagay, waana gunta ugu hooseysa ee goobta macdanta dahabka ee Tawtana. goobtan macdanta ayaana ah mid aad u dheer gunteeda hoose, waxayna qaadanaysaa ku dhawaad saacado in la gaaro salkeeda hoose, ayadoona uu gaaraya cimiladeeda heerkul sare oo ah 60 digrii Celsius. qodidda dhulka 10994 mitir waa meesha ugu dambeysa ee uu gaaro moolka ugu qotada dheer badweynta caalamka, waana moolka ku yaala badweynta Pacifiga ee loo yaqaan godka Mariana ama Mariana Trench. haddaba arrinka la yaabka leh ee jira ayaa ah in tirada dadkii tegay dayaxa ay ahaayeen kuwo aad ugu badan marka loo fiiriyo dadkii tegay bartan. ma rumaysan kartaa inuu bini'aadamku qoday god ka weyn kana dheer guntan hoose ee moolkan keliya, iyadoo dib loo fiirinayo wixii hadda soo socda 12,000 mitir ayaa ah jooga ay gaaraan diyaaradaha rakaabka, halka qodidda dhulka 12,262 mitir ay ahayd godkii ugu dheeraa adduunka ee la qoday, ayadoo la isticmaalaya qalab iyo mashiino wax lagu qodo, waxaana kani uu ka mid ahaa mashruuc lagu magacaabayay godkii qotada dheeraa ee Kola oo uu tijaabadiisu sameeyey midowgii Soofiyeedka si uu u gaaro lakabyada ama bartamaha dhulka oo uu bini'aadamku waxyaalo badan uusan ka ogeyn. hadafka qodidda godka Kola ayaana ahayd in la gaarsiiyo ku dhawaad 15 kilomitir, balse arrinkaasi lama awoodin
sababo la xiriira heerkul aad u daran oo gaaraya 180 digrii Celsius oo soo wajahay qalabyadii wax lagu qodayay, taasi oo keentay ugu dambeyntii inay cilidoobaan. Mashruucan godka Kola ayaana bilowday sanadii 1965 asigoona si dhammaystiran loo joojiyay sanadii 1995. Afka hore ee wareegga birta godkan dhaxroorkeedu waa 23 mitir, taasi oo aysan suuragal ahayn inaad ku dhacdid. laakiin xilli dambe oo ay taariikhdu ahayd sanadii 2011 ayaa god shidaal oo laga qoday isla dalka Ruushka uu gaaray dhirir dhan 12,345 mitir si ay u noqoto bartii ugu gunta dheereed ee uu qoday bini'aadamka ilaa iyo hadda, waxaana ay u dhigmataa guntan iskorsaarka dhismaha Burj Khalifa oo 15 jeer ah. kaliya qolof dhuleedka ama lakabka sare ee dhulka wuxuu gaarayaa qiyaastii 70,000 oo mitir, halka ubuucda ama bu'da lakabyada dhexe ee dhulka ay ka fogdahay 6,370 mitir. si uu u fududaado in la sibirto arrinkaas aadka u baaxadda weyn ayaan u soo qaadan karnaa tusaalahan. haddii ay tahay oogada dhulka magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa bartamaha dhulka magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. haddaba masaafada u dhaxaysa labada magaalo waa tan ay doonayaan inay qodaan bini'aadamka, laakiin fogaantii ilaa iyo hadda ay qodeen bini'aadamku ma dhaafsiisana magaalada Muqdisho. sidaas daraaddeed muuqaalkan waxaan kusoo gabagabeynayaa in weli ayna horyaalaan waqti badan ee cilmi baaris qoto dheer oo weli la raadinayo si aan u xaqiijino riyadan. fadlan haddii aad ka faa'iiday muuqaalkan like saar kana soo dhiiba aragtidaada, hana hilmaama inaad kanaalka caalam kusoo biirto oo aad dhahato subscribe kadibna aad furato gambaleelka si ay dhaqso kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiisaha badan ee soo socda. Allah hadduu ogolaado is arag dambo xiiso leh.